بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخيارت قيمها إيقايا له وحان إليه هبين وعانا وراكسن ما هذا إلهي بأسق ناطي. waxaan idin wadaa caawa warbixin baan idin wadaa laba warbixin baan idin wadaa caawa oo degdega alxamdulillaah waxaan ilaahay markuu wareysaan ka baryaynaa in ilaahay wixii dambi ilaahay naga dhaafo ummadda Soomaaliyeedna dhibaatada ilaahay ka haayo wixii shar wadana Allah ummadda ka qabto meel kasta shacabka Soomaaliyeed joogaana waxaan ugu baaqaynaa nabad iyo barwaaqo ayaan ugu baaqaynaa laba arrimood oo culculus ayaa maanta dhacday labada dhacdo ayaan rabaa inaan idin soo bandhigo sida ay tahay oo ilaahay nagu og yahay iyo sida aan warbixinta aan ku helnay arrin waxay ka dhacday Kismaayo ayay caawa maanta ka dhacday arrinna waa arrintii aad meediyaha ku aragteen ee ka dhacday magaalada Caabud Waaq ayaan rabaa inaan faahfaahinteed idin siiyo ayaan u soo galay saad ogtihiinna hadalkaygu markastaahu wuxuu ka taxalluqaa shacabka inaan soo gaarsiiyo xogta jirta anigoo aanan dhaqaale ka raadin kuwa meediyaasha ku jira oo YouTube-yada beenta sheegana miihi Facebook aan ka hadla aniga YouTube-yada iga qaata laakiin anigu YouTube malihi waxaana u sameystay Facebook-gan inaan shacabka ka wacyigeliyo wixii jirana aan sheegno marka ugu horeysa dhacdada ka dhacday Caabud Waaq waa dib baan u dhiganaynaa laakiin waxaan rabaa inaan idin soo hormariyo magaalada Kismaayo waxa maanta ka dhacay ee taagan waxaan ogsoonahay in ciidamo ka socda federaalka qaasatan ciidanka Itoobiya ee ciidanka Eritrea lagu soo tababaray qayb ka mid ah in la keenay Kismaayo xeelad la dejiyay maanta ayuu Axmed Madoobe ciidan uu wato weerar ay ku qaadeen ciidankii dowladda federaalka Xasan Sheekh uu keenay wiilashii lagu soo tababaray Eritrea xeelad ayuu galshay 170 ayay ahaayeen 170kii caawa waa xiran yihiin hubkina waa ka qaatay arrintaas iyada ah waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan waxa la leynayo oo maalin kasta oo meel la geeyo waa wiilashii lagu soo tababaray Eritrea qaybtii ugu dambeysay oo Kismaayo la keenay maanta ayaa Axmed Madoobe weeraray hubkiina ka qaatay ayaguna ay xiran yihiin warkaas waa war xaqiiqo ah oo dhab ah sida ay noo soo sheegeen dadka deegaanka oo aan cilaaqaad badan la leenahay riboodkooda la soo siiyeen waxay dhahayeen markay ka qaadahayeen qoryaha markay ka qaadanayeen waxay dhahayeen waxaan ka argoosanay hubkii laga qaatay beled xaawo waagii farmaajo uu joogay bedelkiisiyaan helnay ayay dhahayeen ciidankii Axmed Madoobe ee hubka ka qaatay wiilashii Soomaaliyeed ee Kismaayo Xasan Sheekh uu geeyay sidaasay ku qowlayeen waa sida jirta ee dhabta ah shacabka Soomaaliyeed waxaa leh arrintaas waa inaad dhegeysataan oo aad aragtaan oo maqashaan annaga xogta qarsoon idin soo bandhignaa iyo dhacdo kasta saacadii ay dhacday taasuna waa taas waxaan rabaa inaan u soo gudagalo hub faraha ka batay oo saaran laba baabuur oo candamiidle ah oo la rabay in lagu hubeeyo qabiil lagu hubeeyo ayaa maanta waxaa lagu qabtay meesha la yiraahdo Shiilmadow oo u dhow degmada Caabud Waaq waa ilaahay mahadiis hubkaas waxaan ka warqabnay meesha laga soo qaaday
baabuurtii soo qaaday ciddii soo dhiibtay iyo ciddii iskalaba isha ayaan ku haynay in muddo ah ayaan daba joognay alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta ayay suurto gashay in gacanta lagu dhigo hubkaas asaga ah ilaahay baa mahad iska leh waxaa nasiib darro ah hubkaasu loo waday qabiil loo waday in ay gelbiyaan ciidamo sheeganaya magac dowladeed hubkaasna ay u gudbinayeen qabiil soomaaliyeed oo la rabay in lagu xasuuqo qabaa'ilo kale waxaan ugu baaqaa shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan xaqiiqda dhabta ah waad aragtaan indhaha waad ku haysaan meesha tan inaysan dowlada ka jirna waad arkaysaan ood indhaha waad ku haysaan waxaa markhaatidii kaaga ah labada dhacdo ee maanta dhacday ciidankii federaalka ee kismaayo la geeyana maanta hubkii xamdooba ka qaatay kullina ay xiran yihiin in hub qabiil leeyahayna ay ciidan federaal ah ay soo gudbiyaan oy u gudbiyaan qabiil u gudbiyaan si qabiil soomaaliyeed loogu laayo hubkaas maanta dadweynaha waa ku mahadsan yihiin reer cabuud waa aad iyo aadan ugu diraa hambaryo iyo boogaadin aad bay u mahadsan yihiin hubkaas asaga ah wuxuu ka kooban yahay tirakoobtiisaan rabaa inaan idiin sheego dhagaysta hubka aan idiin sheego cadadkiisa in muddana waa ku daba joogna waa ku daba jirnay 270 BKM dhagaysta si fiican u dhagaysta 270 BKM waa qoriga dabajeexa loo yaqaan ee siliska leh waa 270 BKM 280 snipers qoryaha la qabtay 280 qoriga shiish kale sniperka ee turbin kale 280 xabo 170 waxay ahaayeen dheesheeke ama dhishiike sida ay u taqaan Soomaalida ruushkuna waxay dhahaan dheesheeke waa qoryaha ruushka uu sameeyo ee boobaha ay baabuurta la kor saarto ee dhishiikaha loo yaqaan cadad wuxuu gaarayaa 2200 aake 2200 aake waa qoryaha AK-47 ama Kalashnikovka loo yaqaano ee asagoo ruushka uu sameeyo waa 2200 oo AK-47 ah ama Kalashnikov waxaa ku jirtay 800 oo bastoolado oo isugu jira bastoolaha loo yaqaan dhabana casta iyo noocyo kale oo ayagan Russia iyo Belgium ayaa ku jiray iyo hal baabuur oo rasaastood ah waxaa la socday qalabkooda kale kabihii dharkii xabadda la isaga celihayay waxaas dhanna waa la socdeen hubkaas waxaa loo waday degmada gaalkacyo agteeda xaafadda la yiraahdo Baraxley ayaa loo waday waxaana ujeedadu ahaa in lagu xasuuqo oo lagu weeraro qabiilka Soomaaliyeed ee degan Galdogob ee Liilkase ujeedo kale looma soo qaadan hubkaas waxa ayaan darro ah in xubno sheeganaya dowladda saraakiil sheeganaya dowladda inay ku qowlaan hubkaas annaga iska leh bal ilaaha idinku dhaarshay Soomaaliyeed 270 BKM 280 sniper 170 dhishiike 2200 AK 800 oo bistoolad iyo gaari rasaasa ciidanka hubkaas ma dowladda is yeelan karta mase waxa yeelan kara qabiil soo arki maysaan in qabaa'ilada Soomaaliyeed qaarna hub la siinayo qaarna la rabo in lagu weeraro soo arki maysaan in magacii dowladnimada iyo dharkii dowladnimada shaarkii dowladnimada in lagu faa'iideysanayo la rabo qabaa'ilada qaarkood in la kobciyo ilaaha idinku dhaashay
waxaan ugu baaqaa shacabka Soomaaliyeed waa maatayihiin dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan degmooyinka Dhabbad Cabudwaaq Balanbale iyo tuulada la yiraahdo Shiilamadow aad bay u mahadsan yihiin sirmaqabe Allah u sahana culimadii leelkase ee culimada ahaa ee Ilaahay ku xirnaa ee diinkoodii akhrisanayay ee dhulkoodii lagu haystay xaq feerahu ka dilaaca hubkaas ayaga loo watay Ilaahayna gacantooda ka bixiyo qoladii rabtay inay qaadato ciday doontaba ha ahaatee annagu dagaal sokeeye iyo colaad sokeeye raalli ka milin waxaa mahad iska leh intii hubkaas la socotay intii riboodka soo gudbisay hadba maalintii meeshuu marayay dariiqii uu marayay baabuurtii laga gadiyey iyo kuwii kale la saaray kiradii ku baxday baabuurtii dadkii soo gudbiyey iyo nimankii magaca nisa sheeganayay ee calaa askari $5,000 la siiyey inuu hubkaas soo gudbiyo si toosa ayay warbixintu waxay nagu soo dhacaysay maalmaha kan saacadba saacaday nagu soo dhacaysay $5,000 ayaa waxaa la siiyey nimankii nisa ahaa ee joogay gobolka Balanbale iyo Cabudwaaq joogay si ay u soo gudbiyaan hubkaas ayaga ah baabuurta candhameedlayaasha ah waxay marayaan 2 jeer laga rogo rarka oo baabuurka la saaro kuwa ugu dambeeyay ee soo qaadayna waxaa loo shubay $20,000 ayaa loo shubay sidaasan xogta oo soconnaa waxba nama seegaran waxaan leeyahay waa mahadsan yihiin maamulka reer Cabudwaaq odayaasha uqaasha waxaan leeyahay hubkaas dhalinyarada gacantooda galay sida ugu dhaqsiyaha badan ha laga soo wareejiyo nimanka qofkii gadanayna ha laga gado ayaan leeyahay waa inay hubkaas u galaa gacan aamina waa inuu galaa waxaadna ogaataan reer Cabudwaaq iyo Balanbal iyo nimanka degan meesha la yiraahdo Galdogob iyo la Dhabbad waxaad ogaataan hawl hadday kow idin tahay weerarna hadduu kow idin yahay waxaan leeyahay idinkuna deegaanadiina difaacooda adkeeya intaasan kusoo koobaya hadalkayga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u mahad kale u celinayaa dadkii ku guulaystay inay hubkaas qabtaan sharci darrada ah sharci darray leedahay hubkina wuxuu ahaa sharci darro nimanka wadana sharci darray ku wadeen kuwa qabsadana ayagaa xaq u leh waxaan leeyahay idinkuna deegaankiina waa idinku soo maqan yahay annagaa ogsoon in idinku soo maqan yahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu idinkuna korreeyaan difaacan xirta waa maasantiin barnaamijkan hala sheergareeyo intaasna waa intii riboodka ahayd aan idin siiyey kismaayana dhibkaasaa ka dhacay ninkii Axmed Madoobe ahaa ciidankii xasan sheekh uu geeyey meesha la yiraahdo uu geeyey kismaayo geeyey 150 askari qoryihii waa laga qaatay waana xiray Axmed Madoobe taasna waa warkii ugu dambeeyay galabtay dhacday qisas ida ah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maasantihiin waxaan leeyahay reer tolkay aan xididka nahay iska dhiga qaybteyda meel hal iska dhigo ahay waan idin imaanaa mar dhow waa maasantihiin